munaasabad ballaaran oo hanaankeeda dhicitaan aad loo soo agaasimay waxay habeennimadii xalay ka qabsoontay hotel Sowe magaalada Boorama. munaasabadani oo ay soo qaban qaabiyeen haweenka iyo dhalinyarada beel kamida beelaha dega gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa waxay ujeedadeedu ahayd taageerida barasaabka cusub ee gobolka Murudijeex Maxamed Cilmi Ochor. xafladani ayaa waxa ku casuunaa wasiirkii hore wasaaradda beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Saad, gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Awdal Cabdiqaadir Daahir Ochor iyo xildhibaano ka socday golaha wakiilada Soomaaliland iyo golaha deegaanka ee degmada Boorama. sidoo kale waxa xafladani ka soo qayb galay haldoorka bulshada, aqoon-yahanka, dhalinyarada, cuqaashooda dhaqameedka iyo haweenka mid kamida beelaha dega gobolkani Awdal oo taageero weyn u muujiyay barasaabka gobolka Murudijeex Maxamed Cilmi Ochor oo u dhawaan madaxweynaha Soomaaliland u soo magacaabay xilkaasi. waxaanu aad u taageeraynaa oo aad u soo dhaweynaynaa magacaabistii Professor Maxamed Axmed Cilmi oo nu leenahay madaxweynaha leenahay madaxweyne intan iyo in ka badanba oo kaaga fadhinaa. Murudijeex xilka horta Allah ku fudaydo Maxamed oo inaadeer xilka Allah ku fudaydiyo nacab iyo xasid buu jira Allah ka deyraan ku leeyahay wasiirkeena Axmed Muumin Saad oo dadaalka inta lag soo galayna hambaliyaan ku leeyahay Axmedow hambalyo محمد وانسيد دردارمنا waxaan ku leenahay walaalo duco ayaan kugu sagootiyeena ilaahay cadowga ka qabto dhinacyadaada iska eeg anagu ducoon baan kula garab taaganay inteeda maanta halka iskugu timid mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay madaxweyne waad mahadsan tahay ducaan ugu dareena xilka uu hayo xilkan waa runtii waa xilkuna uu hawl badan yahay waan ogsoonahay qof kastana waa garan karaa. gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Awdal oo madasha ka hadlay ayaa waxa uu sheegay mid waa dardaaran aynu kula dardaarmayno walaalkeen Maxamed inuu ilaahay xilka weyn ee ballaaran waayo wuxuu maamulayaa caasimadii wadanka oo Hargeysa oo hawl culus waxaan leenahay ilaahay ha kugu asturo xilka madaxweynuhu ku weegmaday. xildhibaan Fuad Axmed Diiriye oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland iyo xildhibaan Axmed oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ayaa waxay mahadnaq u soo jeediyeen wasiirkii hore wasaaradda beeraha Soomaaliland. dhanka kale waxay taageero iyo dhiirigelin u muujiyeen barasaabka gobolka Murudijeex Maxamed Cilmi Ochor. inaynu si weyn oo milgale ugu mahadnaqno wasiirkeena qaaliga Axmed Muumin Saad inuu kanaan aaminsanahay inuu yahay wasiirkeena runtii qofku markuu halgan galo oo dagaal galo oo hawl soo qabto runtii anaga tacabkii uu soo saaray Axmed Muumin Saad ayaanu maanta nahay haddana isaga iyo idinku aydaan joogina aanay suura gasheen halkan maanta sidan aynu wada farxayno aynu wada faraxsanaano. gudoomiyaha gobolka Murudijeex waa soo dhaweynaa waxaan leenahay hambalyo marka xigtana walaalkeen waynu ducaynaa waxaan leenahay xilka rabbi ku gartay ee lagu igmaday lagu magacaabay rabbi ku garab galo. intaasi kadib waxa makarafanka qaatay Axmed Muumin Saad wasiirkii hore wasaaradda beeraha Soomaaliland waxana uu yiri sharaf iyo runtii karaamayta aniga inaan maanta ka soo qayb galo xafladan saad ogtihiin marka la maqlo Maxamed Cilmi Axmed iyo Axmed Muumin Saad waxa laga yaabaa inaanu isku nahay hal qof. Maxamed hadaan inta taariikhdiisa dib u noqdo 2003 markii aan noqday xogayii ugu horeeyay xisbiga Udub ee gobolka Awdal maalintii aan noqday 2003 bay ahayd ilaa maanta aan marayna 2021 inta waa garab taagnaa wuxuu ahaa saaxiibkay koowaad intaaba siyaasadda soo dhisay sharafay laakiin maanta ay tahay in aniguna aan isaga intii awoodeeda aan dhiso 2022 waxay nagu soo dhow doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xisbiga kulmiye mar labaad waxaan jecelahay inaanu qayb ka noqon doono oo 2017 sidii aynu ugu guntanay aynu 2022 kana mar labaad u imaamad doono madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. ugu dambeyntii waxa munaasabada soo xiray Maxamed Cilmi Ochor barasaabka cusub ee Murudijeex waxana uu mahadnaqay haweenkii iyo dhalinyaradii munaasabadani soo qaban qaabiyay. hadal badan in oran maayo dhammaantii waa inii mahad celinaya
soo dhaweyntaadii samayseen hablaha isxilqaamay iyo dhalinyarta aqoonyahanka isxilqaamtayna iyo marwooyinka isxilqaamay dhammaantoodna waan u mahad celinayaa nasteexa daawud yeedhweyne Boorama.